qisadeena maanta waa qiso xanuun badan. wiil hooyadiisa u diiday inuu wax siiyo, intaa keliya ma ahane ku yidhi, hooyoy waxaad ka maseeraysaa xaaskayga. Yes, saasuu ku yidhi hooyadiisa, waxaad ka maseeraysaa xaaskayge, qof weyn ahaan u dhaqan. سبحان الله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يدرس جامع ردوكات كجبتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة حصة. ولا ليال قصتنا مانتا وقصات وقيمة بدن فضلا دقيسو إلى دماتك كدبنه waxaa noo soo qortaa ama noo soo duubtaa waxaad ka faa'iidaysatay meesha ku soo qor ama nambarka meesha ku qoran ku soo dir waxaad ka faa'iidaysatay. walaalayaal qisadeena maanta waa qiso xaqiiqe ah, xanuun badan, ku dhacday ama dhex martay wiil hooyadiisa iyo xaaskiisa. waxaa jiray wiil wanaagsanaa guursaday gabadh inay wanaagsaneyd iyo inay xumeed qisada ku ogaan doontaa. gabaruu guursaday. wiilkan hooyadiisa wuu u fiicnaa oo biiluu u diri jiray, bil walba u diri jiray. okay, kadib hooyadiisu u biilayay, wuu fiicnaa. hooyadii markii dambe wuxuu go'aansaday agtiisa inuu keeno, maadaama ay kala fogaayeen, laba meel kala joogeen. wuu soo kaxeeyey oo wuxuu keenay agtiisa, guriyuu dejiyey. hooyadii gurigeedii deganay, ninkii iyo xaaskiisana iyo carruurtiisa guri kale deganaayeen. ninkii marka hooyadiisu u tagtagayay oo wuu soo ziyaaran jiray. ciid markii la gaaro ama wax markii la gaaro, طبعا hooyada waxaa loo soo gaday. almuhim waa noloshu waa iska fiicneen, si fiican ay u socotay. maalin maalmaha ka mid ah marka waa israaceen hooyadii, carruurtii iyo xaaskii iyo ninkii waa iswada raaceen. meelaa la aaday, waxaa la soo gadgadanayay. carruurtii wax fiicanaa loo soo gaday, xaaskiina wax fiicanay soo gadatay. hooyadiina waxay sugaysa wiilkeeda inuu yidhaaho wax soo qabso. muusan dhihin, wuu iska aamustay. waxay istiri wiilkaaga wuxuu samayn doono fiiri. waa soo wada baxeen. xaaskiisa iyo asiga markuu u gaday, kan ka warran beella may kama rabay, hay kan soo qaado. waa xaaskii waxay bacdeeda soo buuxsatay, ilmihii bacdeeda loo soo buuxiyey, baabuurkaa lasoo wada koray. hooyadii ninkii xataa wax ma u baahan tahay iyo wax ma soo qabsatay iyo ma jirto. hooyadiina shib ay tiri, way iska aamustay. waa soo wada baxeen. dukaankii waa laga soo baxay, waa la soo baxay, gurihii aa la yimid. hooyadii gurigeedaa la geeyey. waxay tiri gurigeedaa la geeyey, hayeedhe macsalaama. ayagoo faraxsan waa iswada raaceen. hooyadii arrintii way dhibsatay. waxay sugtay marka jaanis wiilkeeda uu u yimaado. wiilkii way u sheegtay. markaasuu wuxuu ku yidhi, hooye ma ogeyn inaa u baahan tahay. anu waxaas dha hooyadaa qof weyn oo ma rabto, taas waan kugu soo gaday. ee haddaa ka xanaagtay raalli noqo. hadalkaas xataa hadal wanaagsan ma ahan. ma u malaynaya inaa u baahanta hadalkaas. calal aqal haddaa qaldantay, qalad laguma saxo. hadalkaas naftirkiisaa qaldan, laakiin kan ka dambeeyuu ka fiican yahay. calal aqal hadalka gadaal uu ka dhihi doono iyo kan kanaaba janno ahbo. wuxuu yidhi hadda waxaan kuu soo gadaa. waxay tiri maya, uma baahni, iska dhaaf. almuhim wuu baxay, dharay jeceshuu yaqaan wuu usoo gaday, wuu bariyey, waa hooyo raalli ahaaw. almuhim waa qaadatay. hooyo waa iska qaadatay. markay qaadatay kadib ninkii, almuhim hooyadii asiga xaaskiisa waa sheekaysanay. qisadii marka wuxuu u sheegay xaaskii waxay bilowday marka hooyadaas
inay ka maseerto ay wiilkii iyo hooyadiisa dhexdooda dab dhigto, dab inay dhigto. wiilkii subxaan allah hadalka sometimes markii lagugu celceliyo wuxuu ka daran yahay musiibo kugu soo degto oo kale waa. ninkii almuhim xoogow kadib dan sano ama 2 sano kadib nafsi طariiqa ayaa la sameeyey. waa la israacay haddana kulligooda waa la iswada raacay. markii la israacay kadib meelaa la tegay, waxaa lasoo gadgadanaya. ninkii hooyadiisuu fiirinooya, wax ma qaadanin inuu u tego. haddana xaaskiisu waa meesha taagay, ilmihiisu wuxuu ku yidhi hadhow intaa dhihi laheed wax ma iisoo gadan, hadda wax soo qabso. hooyadu waa fiirisay, waxay tiri may wax ma u baahnayn. hadalkiisiiba ka xanaagsatay, wax ma u baahnayn ku tiri. way baxday, guriguu tegey. hooyadii waa xanaagsan tahay. markaasuu wuxuu ku tiri, hooyada markay u sheegtay, markaas arrinta u sheegtay, markaasuu wuxuu ku yidhi hooyo adiga xaaskayga maa kama sii yarweysaa. markaasay tiri maxaa tiri? xaaskayga miyaad kama seerweysaa ii sheeg. marka xaaskayga wax soo gadan lagu soo gadaa rabtaay. waxay tiri ma anaa xaaskaaga adiga kama seeraayo? ma haddaa bilowday xaaskaaga inay igu matashid anigoo hooyada ah? iga bax guriga wasakyo, kumana aqaan, iga bax guriga. muxuu yidhi mataqaanaa axsan buuqaagaaba iga yaraysaybu. wuu ka soo baxay. hooyadii cunugeeda markuu intaas ku yidhi way sii gubatay. hooyada ninkii wuuba iska hilmaamay, go-aan wuxuu gaaray inuu la xiriirin, jaanis uu ku raadsanayay, wayba soo raacdaysayba. hooyadiia marka wiilkii raadisay. wiilkeeda hooyo subxaan allah wiilkeedii raadsatay, waa wacwacatay. almuhim waa u yimid. waxay xaawashay inay isxanaajiso, waxay aragtaa inuu isxanaag waxba ka qaadaynin. hooyadii ayaa isdejisay. laa ilaaha ila allah. hooyadii ayaa isdejisay. marka hooyadii wiilkii waxay tiri marka khalaas hooyo aniga haddaan ku canaantaa hooyada ma tihi sooma, hooyada ma iisaamihi. hooyadii aa bilowday marka cunuga inay raali geliso. hooyadii marka waxay aragtay cunugeeda inuu usii jeedinbo, laga jeediyey nihaa'iyan laga jeediyey. hooyadii marka walwal ay ziyaadaysay qaaday, xanuunay qaaday. maalin maalmaha kamid hooyadiisa marka waxay ku tiri waxaa isiisaa lacag isii. dad xanuunsan oo qaraabo iyana xagga jooga isu weydiiye wax mahaya aan diraa isii. markaas wuxuu yidhi lacag ma haye. markaas waxay ku tiri waxaase wax yaray sheegata adiga isii. lacagta ma rabi nambarkeeda inaan sheego iyo waxay tahay ma rabi inaan sheego. almuhim lacag yaray weydiisay, waa diidiyey. ilaahay amarkiisa wax yar kadib uu u diiday. cunugiisa u yimid, wuxuu yidhi kana u baahanahay. intii hooyadiisa weydiisatay 10 laabkeeda waaye. isla marka hore ka saaray. waxaa meesha joogay ilaahay amarkiisa, qofku markuu ilaahay wax la rabo, waxaa meesha joogay nin ay saaxiiba yihiin, maqlaayay waxay hooyadiisa asiga dhexmaraayay, ogaane asiga hooyadiisa cilaaqadiisana isku fiicneen. isla markiina joogay cunuga markuu weydiistay waxaas weydiistay. markaas wuxuu yidhi hebel hee. marka wuxuu yidhi qofka daad wax ku weydiisanayso hooyadaa ma aaday saaxiib waa. markaasuu yidhi aniga wax lay ku weydiinaysaa, annagaba duruufna haysataa, meeqay ku weydiisay? intaas u baxa. hadda cunugaa intuu aadaa waxaas u gadanaya, muxuu soo gadanaya? alaabahaas u baahan yahay, waa sii kaarkaas soo gadanaya, waa cunug khatar ah maasha allah, cunugiisu ammaan u kale. markaasuu meeqaa siisay? intaas. qalin uu soo qaaday. marka wuxuu ku yidhi hooyada kanay ku weydiisay, wiilkaagana intaan ku weydiistay. hooyada iyo wiilkaaga waxay 10 laabkiisa wiilkaaga adoo faraxsanaa siisay. hooyada inaa siisid iska dhaafay, hadal macaan xataa way kaa waysay. ku bishaarayso berri wadadan inaa maraysid. ninkii subxaan allah qofka axyaanan markii wax la xasuusiyo, almuslim waxaa idaa dukira dakar, markii wax la xasuusiyo ninkii shib ah ku dhacday. shib hadal afkiisa wuu ka soo bixi waayey. lana ninkan wanaagsan xaqiiquu faraha ka saaray.
example aan ku siina $100 u diiday wiilkaaga $1,000 siisay kan adigaa dhashay tanna iyadaa ku dhashay kan adigaa sabab u adduunka inuu joogo tanna iyadaa sabab u adduunka inuu joogo tii sababta kugu ahayd loo baahnaa inaad u fiicnaatid waa ka soo jeesatay kaa adiga sabab u ahayd oo maya aad dhihi kartid waa naftaadaa siisay berri ku bishaarayso markaa buuskiisa istaagtid labalaab inuu kaaga dhigayo rasuulkana wuu noo sheegay dulmiga ciqaabtiisa adduunyay ku dhacdaa inta aakhara la gaarin ilaahina saalix u soo diray ninkii kaana qiyaama inay ku kacday naxtintuu naxay wuu xanuunsaday sagta afkiisa kelima waa ka soo bixi weysay gurigaa la geeyey wuu tegay hadal ma leh shib xaaskiis waa yaabad maxaa kugu dhacay hadal dhan ma lahan sariirta kama kacaaya xaaskiis waxay tiri war ma xanuunsan tahay intee lagaa haaya shib war waxay tiri meesha ii jiifine haddaa xanuunsadni sheeg dhakhtaraan ku geeya haddii kalena kaco or shaqa raadso or shaqa raadsi ku tiri haddii kale haddaa xanuunsid noo sheeg aan ku daaweyne meesha lahanoo jiifine ninkii wuu soo baxay ma la hadlin wuu soo baxay suu u socday guriga hooyadii soo gargaraacay hooyadii waa ka furtay ahlan wiilkaygiisa ta shib maxaa ku dhaca cunugeyga soo bax gacantay soo qabatay waa siixisay dhakhtar u yeertay maxaa kuu dhacay cunto u keen biyo u keen hooyo see tahay ma fiican tahay maalin kale usoo noq see tahay ma fiican tahay ninkii wuu yaabay wuxuu yidhi subxaan allah hooyadii wax soo shaqaysa iguma dhahoyso xanuunkeyga fikiraysaa dhakhtaray ugu yeeraysaa kuwii aan nafteyda siiya xaaskeyga iyo carruurteydana 2 maalin markaan jiif maxaa meesha u jiiftaa haddaa xanuunsatay noo sheeg aan ku daaweyno haddii kale bax soo shaqayso hurdada ka kacay ugu tiri 10 labaadii oo noqotay ninkii wuu fariistay wuu isku noqday adkaar uu akhristay marka hore hadal aan ku bidhay asaa aamusay kadib wuxuu sameeyey marka hooyadiisu u yimid wuxuu ku yidhi hooye waa ku dulmiyey wax badanna waa ku dulmiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala leh hadduu xaqi tusay wax allaala waxaa rabtid wallaahi naftiidaan kaa hormarinaa waa ku baryaa qalbigaaga iga cafi lugteeda hooyadiisa dhunkade qalbigaaga iga cafi hooyadu waxay tiri wiilka waxba hooyo subxaan allah hadduu wax kas ugu sameyo iska cafini almuhim hooyadii wiilka waxay kuma sameynaysaa waay ninkii marka sidii uu cashir ku bartay maalintaas waxay ka dambayso hooyadiisa ayuu wax walba ka hormarin jiray ninuu arkay saas oo kale markaas wuxuu ku yidhi hooyadiis wax mudira markaasuu su-aalaan ku weydiiyay haddii maanta xaaska wax ku weydiiso ma siinay waa siinaa buu yidhi maxaa u siinaysaa calaashan guriga wax kusoo qabanaysaa tanne asaa marka dambe wuxuu noqday marka daaci inuu dadka saas oo kale u caqli celiyo hooyooyinkiina baari u noqdo uu dhaho qisadana walaalayaal intaasay ku eg tahay faa'iidooyin badan ay leedahay qaar ka mid ah sheega inta kalena idinka soo qoro khayr allah idiin siiye faa'iidada koowaad aan ka qaadanayna qisadan waxaa waaye carruurta in la tarbiyeeyo diin lagu tarbiyeeyo wanaag lagu tarbiyeeyo loo ducooyo waa arrin wanaagsan ayagaa hadhow gadaal xataa hadduu maalin si wax ka noqoto wuu soo noqon doonaa laana tacliim fi sigar cunuga yaraan wax lagu baro diin lagu baro waa dhagax wax lagu qoray ma tirtirmaayo maalin unbay soo celinaysaa waxaa loo baahan yahay marka ina waalidka la socotid waalidka waxaa laga baahan carruurtiisa inuu wax baro diin baro akhlaaq baro baarinimada waxay tahay faa'iidada labaad aan ka qaadanayna waxay tahay saaxibka wanaagsan faa'iidaduu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi saaxibka iyo saaxibka xun iyo wanaagsan example badan uu bixiyey saaxibka wanaagsan wuxuu ku matelo qof catarkadoo kalo ama carab fiican aan ka heli ama waad ka gadanay ama hadiyuu ku siinaa saaxibka xunna wuxuu ku mateli kan birta garaaco sumaantana saan u garaacayo kilkishiisa uraa ka soo baxayso urkaas aasankaaga galaayo ama
birtuu garaacayo dab ka soo faniinaya kugu dhacayo ku gubaayo marka labadaas ayaa lagu mathalay almaru calaa diini khaliilihi waaye qofka saaxibka wuxuu ku jira diinta qofka saaxibkiisa qul liman tukhaalil aqul laka man ant ii sheeg saaxibka ayaa waxaan kuu sheega ayaa tahay adiga saaxibka ayaa way adiga tahay qofka taan kuu sheegaa saaxibka wanaagsan ninkan bacd allah ilaahi subxaanahu watacaala waxaa sabab aga dhigay inuu badbaadiyo ninka saaxibkiisa haddii kale wuu kusii socon lahaa faa'iidada saddexaad aan ka qaadanayna waxaa waaye xaasaska fadlan ka shaqeey ninkaaga iyo hooyadiisa isu jeclaa lahayn haddaa xasuusataan waa kasoo sheekeeyey ninkii gabadhii wanaagsaneed oo hooyadeeda cashir ninkii hooyadiis isku xirtay ninkeeda cashir bartay waa kasoo sheekeeyey waxaa loo baahan yahay marka gabadha wanaagsan inay ninkeeda sabab u noqoto ninkeeda iyo sodohdeeda inay isku xirmaan ma aha inay sabab u noqoto inay kala goyso khayr allah idiin siiyo faa'iidooyinka way badan yihiin intaasaan ku ekeyna waqtigaa naga dhammaaday inta kale adiga soo qor jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum ilahay dartiisa idiin jeclahay jannada allah nagu kulmiyo waa inuu jimcada soo socotiyo qiso kaloo cusub aad u qiimo badan ilaa jimcada soo socota laga gaara maxaa laga rabaa dhageyso ka faa'iideyso ku camal fal intaa keliya ma ahane bakhiil ha noqonin walaalaha kale usii gudba khayr allah jazaakum allahu khayr baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra